السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. سو كلونتو وناكسن مالو وناكسن سو maanta waxaa idin hayaa cashirka shanaad ee buuggeeni wada sheekaysiga. soo cashirkan waxaad soo aragteen misanaad markaa aad arki jirteen oo keliya wiil iyo wiil oo sheekaysan oo kale, laakiinse maanta waxaa idin hayaa cashir markaas shukaansi ah. dee waxaa wiil iyo gabar shukaansana aga balaasharkan si bilaabo. wiilka hadalka wiilka ayaa bilaabay inta badan gabar waa iska miskiinad weey. soo wiilkaasi bilaabay wuxuu leeyahay wiilkii hay boxamka hay gabar hay buran burnaantida muxuu ka rabaa soo maska dhaho waxa way sida tahay ma fiican tahay warku sidaa buu ku fiicnaa soo. okay wiilka hadalka wuxuu ka bilaabay soo waa qof yeelkiisii midis. okay wiilku wuxuu leeyahay hay boxamka hay gabar hay buran. gabadhi intay xog soo eegtay bay waxay leedahay corrected speech, hadalkaagii sax. wiilka in la cuno gabi ama qada laga dhigto ba marka uu ku sigtaya. gabadhi waxay leedahay correct your speech, hadalkaagii sax. wiilkii uu soo bood wuxuu leeyahay isaguna garbuu leeyahay inuu gar uu leeyahay oo uu saxan yahay buu isku maleeyaa. soo wuxuu leeyahay my speech hadalkayga is not wrong, ma qaldan, balaakiinse speak to me well, si wanaagsan ugu hadal. hadalkaagii sax iyo waxaas igula hadalne si wanaagsan igula hadal ayuu leeyahay. gabadhi waxay leedahay what are you okay. gabadhi mar hore way xanaagsan tahay sideedii ku xanaagsan tahay oo waxay leedahay what did you want from me, maxaad iga doonaysaa anigu, maxaad iga doonaysaa oo dantaada maxay tahay. okay wiilkii dantiis buu sheeganayaa. wuxuu leeyahay sister payo I was looking for you ayer sanad baan ku raadinayay minaha soo sidaa darteed can you pass me your name, magacaaga ma isoo baasi kartaa magacay miiso baas karta. laakiin waxaan isweydiinaynaa qof adiga sanad dhan aad raadinaysay oo magaciisa aan aqoon why see ku dhacday. laakiin wasboojinaya Soomaali waxay ku mahmahda waxa weeye dumarku been ba markaasi lagu soo hargeliyaa mise been lagu dhaqaa. soo marka isaga been buu meeshan ku hayaa oo wuxuu leeyahay sanad dhan ku raadinayo. gaar marka aad dhahdo sanadan ku raadinayo dee laga qaarkood inay roon ay u qaataan oo is yiraahdaan wiilkan sanadan ayuu markaa uu ku raadinayay khayr ay horto. marka inta waa kaftan aynu ka gudubno. okay sister apayo I was looking for you a year sanad baan ku raadinayay so can you pass me your name, says darteed ma isoo baas kartaa magacaaga. halo uu sheegi doontaa mise gabadhi waxay u jawaabaysaa wiilka why were you searching for me, maxay tahay sababta aad ii raadinaysay aniga. why sababtee were you searching for me, aad ii raadinaysay ayer. okay sanad maxaa ii raadinaysay anigu. okay wiilku jawaabtu bixina marka wuxuu leeyahay because sababtoo ah you attracted me very well, si wanaagsan baad ii soo jiidatay and I love you very much indeed, anigana aad baan kuu jecelahay xaqiiqtii. ereyga indeed waa xaqiiqdii mise dhabtii. wuxuu yidhi aan kusoo celino because sababtoo ah oo sababta aan ku raadinayay waxa weeye you attracted me very well, adag si wanaagsan baa ii soo jiidatay oo aad iga dhex baxday wey, and I love you very much indeed, xaqiiqdana aad baan kuu jeclahay. gabadhii wiilka inta eegtay oo waxa weeye bay waxay ugu jawaab celisay intii dhihi lahayd waa hayso dhow waa kaa intaa dhihi lahayd bay waxay ugu jawaabtay you hooligan boy, misena you hooligan wiilihow rabshoolaha oo ciyaal sooga listen to me well, si wanaagsan ii dhegeyso. waa iska kayaxaysiis fiiriya waxay leedahay I am a gym girl, waxaan ahay gabar qaalayaan aniga, taasoo markeeda aan la bixin karin. soo saa darteed my prestige aniga sumcadayda umasan sharaftayda is above the court, way ka weyn tahay inaan shukaansado minaha, misena way ka sareysaa inaan shukaansado someone qof who is foolish like you, adigoo kale nacas misena doqon waa. soo saa darteed take 5 nabad geliyo. allah wiilkii waa laga tagay isagoo halkiisa jooga baa laga tagay. soo casharku wuxuu leeyahay markaa cashar kasta wuxuu wataa waxaa loo yaqaano erey ayuu wataa. soo casharkeena ereyadiisa ayaynu isla arkaynaa insha allah. soo erey u horeeya waa boxam means waa buuran, correctin waa sixid, indeed waxa weeye xaqiiqdii
hooligan waa rabshoole, attracted waa soo jiidasho, chim waxa weeye qaali means prestige waa sumcad, take 5 na waa okay see you in, bye bye, goodbye, okay cheerio. So eryaashaas wuu la mid yahay oo waxa weeye nabad kill you means. Okay, thank you very much. Okay, so please la soco casharadaynu soo dhigayno qaybta online-ka ee schoolka Modern Online College. insha Allah halkan markasta waxaad ka helaysiin casharo markaas aad muhiim ah adigoo noo dhiirigeliya insha Allah waxa weeye inaynu joogtayno soo dhigida markaa casharada la soo dhigay channelka asxaabtaadana si gaarsi haddaad video ku soo gaaro la wadaaga asxaabta buuga loo aqriyo sida caadiga offline-ka isku ku dhigto. Okay, waxaan rajeynayaa insha Allah horumar wanaagsan. Okay, thank you very much.